بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم waxaynu ku jiray casharadeenii taxanaha ahaa ee ka hadlayay siyaaratul qubuur iyo qasaa'idka iyo waxyaalaha cilaaqada iyo xiriirka la leh ee mawduucaas ku saabsan waxaynu bilaabaynaa maantay insha allahu tacaalaa casharkii lixaad shan xalaqo ayaynu soo qaadannay xalaqadii lixaad baynu ka bilaabaynaa waxaa inoo dameeyey oo inoo ku soo joogtay cibaadada waxa la yidhaahdo tacriifkeeda maxay tahay cibaado cibaado waxaynu nidhi waa isim ay soo hoos galaan wax badan waxaa badanna waa cibaadada noocyadeeda tusaalehaynu soo qaadanay waxaa ka mid ahaa salaada iyo zakada iyo ducada iyo adkaarta iyo dhammaan wax fara badan oo aan la koobi karin weeye cibaadada noocyadeeda oo dhan ayaa soo gala baabkaas waxaynu maanta ka bilaabaynaa cibaadadaasu shuruud ma leedahay shuruuddu sida la og yahay waa shayga la qabanayo waxyaabaha ka horreeya intaan la qaban mathal salaaddu waxay leedahay shuruuddaasu waxaa loo baahanayaa oo la diyaarinaya intaan salaada la gelin ka hor tahaaradaa ka mid ah qiblada in la qaabilaa ka mid ah makaan daahira in la istaagaa ka mid ah niyadii in lala yimaadaa ka mid ah culimmada qaybna arkaantay ku daraan waana sax waxyaabaha ka horreeya niyada ee salaada ayaa waxaa la yidhaahdaa shuruud shardi dayib sidoo kale ducadii iyaduna waxay yeelatay shuruuddaa markii la helo bay ducadii ansaxaysaa markii aan shuruuddaa la helinna ma ansaxayso weeye macnaheedu soo uma jeedid shuruuddaas marka waxaynu ka soo qaadanaynaa kow an yakuuna alcamal khaalisan liwajhihi alkariim camalkan cibaadada ah oo qofka muslimka ahi samaynayo oo ilaahay uu ku leeyahay oo ilaahay dartii u samaynayo camalkaas waa inuu yahay khaalisan liwajhihi alkariim meel kale ama jiho kale ama makhluuq ilaahay ka soo hara looladan leeyahay waa inuusan ahayne khaalisan liwajhihi alkariim ilaah subxaana wa tacaala wejigiisa kariimka ah mid khaaliso ah ee u go'an ee u gaara ee aan lala wadaagin waa inuu yahay soo uma jeedid haddii kale oo uusan ilaahay khaalis u ahayn cid baa la wadaagta waad aragtay istuska qofku haddii uu sameeyo waa nooc shirkiya ilaahay subxaana wa tacaala waa iskaga tagaa oo waa banneeya soo uma jeedid halkaa marka shardigaasu wuxuu noqday inuu camalkanu yahay khaalisan liwajhihi alkariim waxaa u daliila ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala fii suurati alkahf faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofkii ilaahay la kulankiisa rajo ka qaba ee sugaya diyaar u ah falyacmal ha samayo camalan saalixan camal saalixa ha samayo walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ilaahay cibaadadiisana cidna yuu la wadaajin oo rabbi uusan la musaarakaynin cidna shardigaas waa arkaysaa waa shardi muhiima oo daliil leh camalkan qofku markuu samaynaayo noocuu doono ha noqdo magacuu doono ha yeesho boosku doono ha ku aadanaado mar hadduu yahay camal ilaahay dartii loo samaynaayo oo ilaahay loo diraayo oo qasadku ilallaahi uu yahay waa inuu yahay khaalisan liwajhihi alkariim shardiga labaad
cibaaradu leedahay wuxuu yahay an yakuuna alcamalu waa inuu yahay dimna xuduudi shariica iyo wamutaabacati almustafaa sala allahu calayh wasalam nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh raacistiisa ama xuduudda shareecada maristeeda waa inuu yahay camal nebiga lagaga dayanaayo oo nebi maxamedin amray ee uu sameeyey ama acmaashu ina amray hoosgelaaya waa inuu yahay an yakuuna alcamalu dimna xuduudi shariica ogow shareecaddan waa mutakaamil way dhammaystirday alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii ilaahay diintan waa agaasima waa dhammaystiray wax baahi ah oo cid kale loo aado ama makhluuq loo aado ilaahay kama reebin subxaana wa tacaala marka xuduudda shareecada cibaado ku eg oo ku dhex jidha oo layna amray oo laynoo qeexay waa inuu yahay camalkan cibaadadana waa inuu yahay hadduu noqon waayo waa cibaado musayafa oo foojariya oo banka-uuna oo aan jirin oo rag fikirkii ku timi cibaado marka ilaahay uu jideeyey rasuulkuna uu ogaayo ina baray maaha labadaa weji hadday weydo qaybtan dambe waxaa u daliila calaa xuduudi shariica inay tahay iyo mutaabacada nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi xadiidkii caaisha radia allahu tacaala canhaa nebigu ee bukhaari uu soo saarayey man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddu nebigu waatuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi sidoo kale xadiidka kan isaguna saxiixa ay abu daa'uud uu soo saarayo man axdatha fii amrinaa haada maa laysa minhu fa huwa raddu camalka yaga kan qofkii ku soo dara ama ku soo darisiiya ama camal aanaan ogayn sameeya waa marduud wuu sameeyey laakiin meesha dhaafi maayo lana aqbali maayo halkaas waxaynu ku barannay cibaadadu inay leedahay shuruuddeeduna waa labadaas khaalisan liwajhi ilkariim inuu yahay iyo calaa an yakuuna dimna xuduudi shariica inuu yahay shareecadda xuduuddeeda waa inuu ku dhex jiraa oo uusan ka baxsanayn oo uusan maaragtay dibadda laga keenay uusan ahayn oo lagu soo daray dayib qodobkaa shuruudda shareecada markaan ka gudubno ee shuruudda waxaan leeyahay cibaadada quluwiga waxa la yidhaahdo wax jira ma yahay muxuuse yahay isagana haddaan suurad ka bixinno waa xadkii shareecadu ay dhigtay in la dardaraho dhinaca shee looga baxo oo muxuu ahayto bannaanka lagaga dhaco oo laga badbadiyo oo nebigu wuxuusan samayn yidhaahdo waa samaynaya oo saxaabatu rasuulillaahi oo nebiga ardaydiisa ahayd salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wax ayan samayn oo ku camal falin yaan samaynayaa qofku markuu yidhaahdo dhinaca shee iska taago arrintaa weeye bahashaan quluwiga la yidhaahda waana shay aada u xun shareecadana islaamkana qur-aankeena kariimkaana waa inuu ka digay axaadiista nebigana nebigu waa inuu ku qeexay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi macnaheeduna wuxuu yahay markii lasoo duuduubo waa in aan laga siyaadin cibaarada kayfiyadii ilaahay u sharci gareeyey iyo qaabkuu u dhigay waa inaan wax lagu darin sida maxabbada ambiyada waa cibaado xaq weeye maxabbatu saalixiina xaq weeye qofku markuu hadduu ka siyaadiyo xuduuddii ay lahayd ilaa uu ugu yeedho ama uu baryo macallaahi oo yastaqiitha bihim gargaar ka dalbo in la jeclaaday ahayd oo wanaagga iyo karaamada iyo darajada ilaahay siiyey oo ilaahay ku karaameeyey in lagu jeclaaday ahayd oo lagu raaco laakiin markii la siiyo istiqaatho iyo baryo waa xadgudub maxaa yeelay baryada ilaahay baa lahaa ee iyagu ma lahayn in la sii marana ma ahayn in la weydiistana ma ahayn labana midna ma lahayn dayib waxaa kala laba noqonaya ambiyada in la rumeeyo oo la raaco oo la oggolaado iyo in la baryo oo baryadii la siiyo cibaadada ahayd waa kala baab arrinta marka in istiqaafo la weydiistaa waa dulm waana shirki soo ma jeedid waxaan raacaynaa nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaana u hoggaansamaynaa wuxuu la yimi annagoo quluwi aan ku samayn quluwina mararka qaarkood wuxuu noqdaa bidco mararka qaarkoodna wuxuu noqdaa shirki nas'alullaaha alcafwa waalcaafiya ilaahay subxaana wa tacaala marka wuxuu ina leeyahay
yaa ahla alkitaab laa taqluu fii diinikum walaa taquluu cala allaahi ila alxaq. dadka kitaabka la siiyow, dadkii hore oo kutubtii hore la siiyey iyo kuwa islaamka ah oo kitaabkan la siiyey labadaba waa soo gelaayeen. dadka kitaabka la siiyeyow laa taqluu fii diinikum, diintiina quluwa ku samaynina, walaa taquluu cala allaahi ila alxaq, ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha odhanina ilaa xaq ma ahaane, wax kale ha odhanina. oo muxuu yahay xaqaasu? waa shayguu idiin jideeyey oo idin baray oo idiin tartiibiyey oo nebiga carabkiisa idiin soon mariyey oo nebigu idiin qeexay, waxaan ahayn ha odhanina. soo ma jeedid? rasuulku wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi, xadiiska uu wariyey nisaa'i iyo qayrkiis, albaanina uu saxiix yeelay: yaa ayuhannaasu dadow, iyaakum waalquluwa fi ddiin fa innahu ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin. yaa ayuhannaasu dadow, iyaakum waxaan idinka digayaa waalquluwa fi ddiin, diinka inaa quluwi ku samaysaan oo xuduudda laydiin dhigay dardartaan oo dhinacasha uga baxdaan oo waxaan nebigu samayn sameeya ku fekedhaan oo cibaado aan nebigu samayn ee ka badbadiya oo ka badiya oo ka shisho mara oo kala kormara inaad ku fekedhaan. arrimahaasoo kale waa quluwi. ma ujeeddaa? fa innahu quluwigu ahlaka man kaana qablakum, dadkii idinka horreeyey isagaa halligay dadkii idinka horreeyey. fa innahu ahlaka, wuxuu halligay quluwigu man kaana qablakum, dadkii idinka horreeyey fi ddiin, alhuwa quluwi fi ddiin. ma ujeeddaa? halkaa marka waxaa laynoo ka digaya aayaddii iyo xadiisku waa isku macne, waa xadiiskaas sii tafsiiraya. ummaddii idinka horraysay waa halligaye, iska ilaaliya. sidoo kaleeto xadiiska caaisha radiallahu tacaala canhaa, ummu xabiiba iyo ummu salama waxay ka sheekeeyeen kaniisa ay ku arkeen bilxabasha. gabdhihii muhaajiraadka ahaa bay ahaayeen oo u haajiray bilaadulxabash. marka kaniisad meeshaa ku taal bay ka sheekeeyeen. waxay yidhaahdeen fiihaa tasaawiirun, kaniisaddaa sawirro ayaa ku dhex yaal, sawirraa dhexdeeda ku yaal. ma ujeeddaa? sawirrada in la dhex dhigo guryaha oo qof sawirkii la dhigo weyn oo inta maaragtay sawir weyn aad u weyn la sameeyo muraayad la gesho halkaa lasoo dhigo, arrintaasu arrin fiican maaha. haddii taa laga badbaado khatartaah oo kale, waxaan laga badbaadayn malaa'igtu ma soo gelayso gurigaas. marka waa la yska ilaaliya, guryaha lama dhigto waxyaalahaas. wax xigmada oo ku jidhaana haba yaraatee ma jidho. dayib, ummu xabiiba iyo ummu salama waxay yidhaahdeen kiniisaddaa waxaa suraa sawirro. sawirradaas waa sawirro dadkay caabudaan iyo nebi ciise iyo muxuu ahay tooy. nebi ciise xaggee ku arkeen? mayagaa arkay beentooda. nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh, xadiiskan bukhaari iyo muslim baa soo saaray, wuxuu yidhi inna ulaa'ika, duulkaas sawirrada kiniisadahooda saaray, idaa kaana fiihim alrajul asaalix, haddii qof saalixa oo wanaagsan oo ahlu cibaado ah oo ahlu khayr ah dhexdooda uu ahaado oo famaata uu ka dhinto, banow calaa qabrihi masjida, qabriga korkiisa ayay masaajidka dhisaan. soo ma jeedid? wa sawaruu tilka suwar, suuraddiisiina waa ku sawiraan. ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah yowma alqiyaama, khalqiga ilaahay abuuray kuwa ugu shar badan oo ugu xun weeye. kiiska ay galeen maxay tahay? qabrigii ayay waxay ka dhiseen dushiisa masaajid, qabrigiina waa soo hoos galay. dadkii markii cibaadada wuxuu u soo aarayaa masaajidkaas. soo ma jeedid? qabrigina meeshuu yaal. waxaan kala badbaadayn cibaadadan ilaahay loo gudanayo oo salaada ah iyo qabrigan tacdiimka la tacdiiminayo kala bixi maayaan. sidaa daraaddeed meesha shirki baa ka dhacaya, qofka sawirkiisana xaggaa lagu dhejinaya. arrintaa dadka muslimiinta waa ka dhacdaa in qabriga korkiisa masaajid laga dhiso. innaga soomaali ahaan dhexdeenna waa dhacday, waana jidhaa ilaa iyo hadda. sawirka in lagu dhejiyo ma caddayn karo, laakiin waa suuragal inay dhici kadho. soo ma jeediro sawirka la saaro masaajidka, qabrigan masaajidka ku dhex jira qofka lagu aasay sawirkiisa in derbiga la saaro waa nafsu arrintaa lafteeda weeye, waana halis. soo ma jeedid? dayib, sidoo kaleeto nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo arrintaa burinaya waxa uu yidhi xadiiska caaisha iyo ibnu cabbaas radiallahu tacaala canhumaa, waxay yidhaahdeen qaala lamaa nuzila birasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam, rasuulka markii geeridu u timi ee xanuunkii malakamowdka uu qabtay, ee xanuunkii lagu qabtay,
ilaa culays buu leeyahay iyo xanuun iyo dhib qofku caalam kale u guuraya. dafiqa nebigu wuxuu bilaabay oo gudagalay yadraxu khamiisatan lahu calaa wajhihi mara qoyan oo uu hayo oo lala dul joogay ilaa dhabta caaisha. nebigu waatuu ku tiirsanaa salawaatullahi wasalaamu calayhi ummahaatulmu'miniin wejigiisa ayuu nebigu saaray maradii qaboobayd. faida qtama markii xanuunku uu ka bo'ona kashafahaa can wajhihi wa qaala wahuwa kadalik. nebigu isagoo xaaladaa ku jira oo xanuunkii naftu ay hayso oo malaka mawdka u dul joogo oo muxuu sakaraata mawdka uu dhibayo xanuujinayo ayuu nebigu hadlay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. hadalkaas waa hadal qiimo weyn ku fadhiya dadka muslimiinta ah. waa ugu dardaarmayna inay aad iyo aad u qadariyaan oo qiimeeyaan oo fahmaan oo ku camal falaan oo caadifadda iyo meel jacaylka xagga iska dhigaan oo qabuuraha gagabka lagu gagabayo layska daayo. qabuuraha dadka ku jira ilaahay ha u naxariisto muslimiinta ah. wax cibaadaha ina kaga xiranna ma jiraan. duco iyo cibray ina ku leeyihiin inaan ku cibro qaadanno. kan ina ku dhow baynu u tegaynaa. kaan aasayno maalin kasta qabriga aan geynaynaan ku cibro qaadanaynaa. laakiin kuwa kale inaan safar u gallo arrintaas waa falsafad. diinteenna islaamkana waa nahyiday. waa kana xadiiska lacnatullaahi cala alyuhuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaahi masaajida. xadiiska horuu la macno yahay. bukhaari baa soo saaray fii kitaabi almasaajid. soo uma jeedid lacnadi ha ku dhacdo yuhuud lacnadi ha ku dhacdo. waxaynu leenahay lacnadi ha ku dhacdo. nasaarana lacnadi ha ku dhacdo. si guud oo mujmala in loo lacnado wakaa carabka nebigay ku bannaantay salawaatullahi wasalaamu calayh. cilladda ay ku muteen nacladda waxay tahay ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim. ambiyadooda qubuurahoodiibay waxay ka dhigteen masaajida. walaalayaal soo uma jeedaan in qabuuraha ambiyada laga dhigto masaajid oo cibaarada ilaahay iyo qabuuraha laysu geeyo. arrintaas walaalayaal waa mamnuuc. arrintaas waa reeban tahay. adilada aan soo sheegnay oo dhan iyo kuwa iman doona ayaa caddaynaya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. soo uma jeedid sidoo kale nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi isagana wuxuu inoo sheegay intuusan dhiman 5 beri ka hor yaquulu wuxuu leeyahay innii abra'u ila allaahi an yakuuna lii minkum khaliilun fa ina allaha tacaala qad ittakhadanii khaliilan. nebigu 5 beri dhimashadiisii ka hor ayuu wuxuu caddeeyey salawaatullahi wasalaamu calayhi. xadiiskan muslim baa warinaya. sidoo kale ilaahay waxaan isaga beri yeelayaa inuu ii ahaado mid khaliil iyo saaxiib gaar ah oo inta kale ka soocano gaar iyo inaan samaysto oo xilka iyo mas-uuliyadda iyo waxaas iyo maaragtay aan ku wareejiyo. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi arrintaa shaqaday maaha. ilaahay baa wuxuu iga dhigtay khaliilan kamaa ittakhada ibraahiima khaliilan si uga dhigtay. haddaan qof ka dhiganayo khaliil ummadayda ka mida abaabakar baan ka dhigan lahaa. kamana dhigan. alaa wa ina man kaana qablakum. qaybtan dambe oo xadiiska ayaa maaragtay mawduuceena aad u dul jooga. alaa wa ina man kaana qablakum dadkii idinka horreeya kaanuu waxay ahaayeen yattakiduuna qubuura ambiyaahi masaajida. ambiyadooda qubuurhooda waxay ka dhigan jireen masaajid. ma ujeedaa masaajid bay ka dhigan jireen. iyo wasaalixiihim dadka dhinta oo saalixiinta ah oo iyaga ka dhinta qabuurahooday masaajid ka dhigan jireen. alaa falaa tattakidu lqubuura masaajida innii anhaakum can dalik. arrintaa waa idinka reebayaa. nebigu wayna ka reebay. arrintaa dadka muslimiinta ah walaalka ah waa uga digaynaa. qabuuraha wax kaaga xihan ma jiraane haddaad amateed haysid salaatuleylkaaga iyo salaatuduxadaada iyo salaadahaaga waajibka ah iyo tartiibkooda iyo nidaamkooda ilaaliya walaalayaalow. waxaa badan qof caamo ah oo miskiin ah oo waxba aan kala ogayn oo aad iyo aad weliba indhoolo caamo ah u ah oo waxba aan kala ogayn baa qabuurkii ku gagabaaya oo ku ooyaya oo qaniinaya oo ciid ka guranaya oo ku galgalanaya oo isku dulbaabi'inaya qabriga dushiisa markuu tago. arrintaasu maxay tahay? waa jahli oo waa diin la'aan oo waa dullinnimo oo waa shirki oo mawjeeda. muxuu la galgalanaya? muxuu la ooyaya? beerka kuwa saaraya oo isku kala rogaaya oo gagabaaya oo ooyaya oo ciid farqiyada ku xiranaya. waxaas oo dhan baa la hayaa. arrintaa waa qalad. qabriga iyo qubuuraha iyo cibaarada kala ilaaliya. sidoo kale xadiiska abu hurayra radiyallahu ta'ala canhu qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nebigu wuxuu yidhi laa tajcaluu buyuutakum qubuuran. war ha ka dhiganina guryihiinna qubuur oo kaleeto. oo see looga dhigaa? qabrigaan si lagu tukane ha ka dhiganina guriga meelaan lagu tukan
walaa tajcaluu qabrigaygana ha ka dhiganina ciidan meel ciid loo soo aado oo loo soo ciidka maaragtay ciidka soo meel lama aado oo looma ciido oo lama tago oo laguma shiro taasoo kale ha ka dhiganina wasalluu calaya warka cad waa kana igu salliya meeshaa joogtaanba fa inna salaatakum tabluqunii xaysu kuntum meel allaale meeshaa joogtaan salawaadkiinna iyo ducadiinna way soo gaaraysaaye igu salliya qabrigaygana inaad soo aadaan oo u soo safartaan oo isku dhibtaan ilaahay subxaana wa tacala idinkuma addoonsan idinkumana ciqaabin ma ujeedaa halkaa marka waxaan arkaynaa walaalayaalow dadka muslimka ah walaalaha ahow ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqda iyo talada wanaagsan allahina waafajiya aamiin dhahaya intaa kadib walaalayaalow qabuuraha cibaadayna kagama xira cibaaradeenna guryaheenna iyo masaajideenna iyo meelaha kaloo aan joogno ayaan ku tukanaynaa qabriga iyo cibaaradu isma galaan shaqana iskuma leh qabriga iyo cibaarada walaalayaalow shaqa iskuma leh ismana galaan isumana tagaan isku meelna ma ahaadaan waad ogtihiinoo shareecada islaamku haddii qabrigu horreeyey masaajidkaa la duminaya haddii masaajidku horreeyey oo qabriga la soo geshayna qabrigaa meesha laga saaraya isma galaanoo shaqa iskuma leh axaadiistaasaa u daliila salliga nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi oo waajibka ah cidda aad iyo aad amateedka ugu haysa meel allaale meeshaa joogtid nebiga ku salliga nebigana nebigaa ina baray ee qaab heella ah oo gabay ah oo geeraar ah oo giis ah oo qasiido loo yaqaan oo nin kuu ururiyey oo qof lagu baryaayo mase nebiga lagu barya salliga nebigu maaha rasuulka waatay weydiiyeen salawaatullahi wasalaamu calayhi carafnaa kayfa nusallimu calayka fa kayfa nusallii calayk xadiiskii saxiixa ahaa waatay asxaabadu nebiga weydiiyeen see kuugu sallinaa inaan ku salaanno waa barannay oo waa ogaanay qaabka laguu salaamayo ee see kuugu sallinaa nebigu waa ka baraaya walaalayaalow qaabku u sheegay muxuu inoo ku fillaan waaye maxaynu wax kale uusan nebigu san u dardaraynaa maxaynu quluwiga u samaynaynaa maxaynu khayrka intaynu ka tallowno cidlada ugu dhacaynaa maxaynu bidcada iyo waxaa nebigu odhan u abuuranaynaa dadka waxaa culimmada ku ah oo dadka caamadaa waxaa u abuura oo hawshaa sameeya ilaah subxaana wa tacaala ha uga baqeen ilaahay ha uga baqeen ninkii yaqaanu arrintaa dardara oo dadka isjeclaysii iyo ku baaro iyo ku shirso iyo hanti kaga hel iyo jago iyo madaxtinimo iyo mas-uuliyad iyo maamuus iyo culimonimo ha lagu ictiraafo oo arrintaa dadka ku mashquuliya ilaahay subxaana wa tacaala baad hortegaysaa alle uga baq subxaana wa tacaala saasaan kugu naseexaynana addiinu nasiixa walaalka muslimiinta diintu waa naseexo in laysu naseexayo wey halkaa waxaynu kusoo xiraynaa insha allah casharkeennii lixaad qaybtii taxanaha ahayd qaybtii lixaad biidni illahi tabaaraka wa tacaala وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.